aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Cashar Nadaara daawadayaal sida la socotaan sanad walba saacadan oo kale amba maanta oo kale waxay magaalada Qaahire ka tahay maalin weyn iyadoo inta badan waliba ay soo dabaaldegaan dalalka caalamka iyadoo lagu soo bandhigay maarijahan aad u sareeya Jaamacatul Qaahira dawladda sida arkaysaan waxa halka idinka muuqda calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo calanka walaalaha aanu nahay ee Jamhuuriyadda Djibouti Xasan Jaamac Alaale isla markaana aad la socotaan sanad walba in maanta oo kale dalka walaalaha aanu nahay ee Jamhuuriyadda Djibouti inay halkan ku soo bandhigaan ayaga iyo Soomaalidu wali kaalin fircoon ay ka qaataan amba sanadii hore ay ku guuleysteen inay kaalinta koobaad ka galaan marijaankan qiimaha far badan leh oo ay soo bandhigaan lagu soo bandhigo kulliyadda saraac ee Jaamacatul Qaahira Xasan Jaamac Alaale ayaan weydiiyay maanta sida uu yahay dareenkiisa والله ما هذا أرسل ذلك سيد بدض بدن بيسوي ما ده أو جنسية كلا دوين ستة مركا وح إسكا معروفة سند ولينا ولا قبتها كان هو سند كي أفراد اللي قبنا إلا سديد يتمن دولدود أو كلا دوين أياك سواق يبقى جيبوتي أيكو شرطة صومالي أيكو شرطة ودنا بدن أفريقيا أيكو شران ودنا بدن آسيا أيكو شران مركا سيد ذلك سيد حفلة دوا بلا وجيون واحد ضمبا ويناط ضمبيان ضد نسوي عيسى إن شاء الله تعالى سعيد جامع oo ka socda dalka Soomaaliya isla markaana halkan sanad walba kamid ah ardayda maarijaanka 18 dawladood ee lagu qabanayo Jaamacatul Qaahira ayaan weydiinay sida uu dareenkiisu yahay maanta bismillaahir rahmaanir rahiim maanta aad iyo aad ay farxadayda weyn tahay sida walaaladayda Soomaaliyeed ee kale ardayda iyo jaaliyada kamid ah halkan aanu Qaahira ku nool maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan wadankayga anagu matalayna Soomaaliya ka qayb galno TV Universal ayaa la kulmay safiirka wadanka Jamhuuriyadda Djibouti Muuse Maxamed Axmed asagoo ku tilmaamay maanta inay tahay maalin weyn waayo buu yiri waxaan fulinay dalabaadkii ay soo jeedisay jaamacadda caalamiga ee Qaahira iyo waliba dalabaadkii ay naga soo codsadeen inaan u nimaado ardayda Jamhuuriyadda Djibouti ee wax ka barata kulliyadda beeraha ee jaamacadda Qaahira asagoo u warramay telefishinka Universal cabiri in dareenkiisa maanta sida uu yahay waxa uu yiri horta mahad waxa iskale Universal TV oo fursadan siisay maanta anakoo joogna Qaahira gaar ahaan jaamacadda Qaahira kulliyadda beeraha oo maharajaankii labaad ee sanawiga ayaa arday maaragtay 12 dawladood wax ka badan oo ajaaniba oo Carabi isku jiraan iyo Afghanistan iyo dawlado badan isku jiraan iyo Maaliba ayay meesha isku yimaadeen anu maanta waxaan u joogay dacwad markaan ka helay markaan ka helay waxay hayday ninkii jaamacadda lahaa ee kulliyadda mas'uulka ka ahaa ardaydana waxay dhigataan naka 12 arday oo 3 gabdho ay yihiin kulliyadda zaraacadda kulliyaddan beeraha anaku ahamiyad gaar ah ayay noo leedahay reer Djibouti haddaan nahay marka siyaasaddu madaxweynuhu uu jeexay uu yiri wadankiina wax kala soo baxay wax soo saar wixii ay reer Djibouti ay u baahnayeen oo dhan waa inay beeraha laga soo saaro ayuu yiri wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta iyo wadanka Jamhuuriyadda Djibouti oo halka ku soo bandhigay wacdaro la yaab leh iyadoo ciyaartan ay soo bandhigeen ay ahayd sida tan sidoo kale wadanka Soomaaliya ayaa soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyadoo sanadkan xafladan ay ahayd tii ugu qiimaha badneed isla markaana ay soo bandhigaan wadanka Soomaaliya iyadoo qof walibana uu soo qaatay astaanta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo waliba hoolka loogu talagalay cunnada oo sanadkii hore ay kaalinta koobaad ka galeen ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata kulliyadda saraaca jaamacadda Qaahira oo ku dul sawirnaa madaxweynaha wadanka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed laba dumar ah oo ku labisnaa dareeska amba hidaha iyo dhaqanka dalka Soomaaliya oo dareenkooda cabiriya maanta sida uu yahay ayaa yiri
deeq Axmed Cabdi waxaan ku faraxsanahay maanta mahadsanka aan si weyn kana uga qaadanay annaga la waddanka Soomaaliya oo aan la mid nahay wadamada kale ee dawladaha leh xataa aan gaarno mararka qaar kaalin fiican oo labaad soo galnaan ka sarreeyno kuwa dawladaha leh annagoo soo xaadiraya safiirkeena ardayda dhan iskaga imaaneen inta qaahiro joogta annagoo muujinayna inaan kor u qaadno waddankeena ka muujino meesha fiican wax la qaadano aad iyo aad aan ku faraxsanahay wallahi wadanimaan dareemayaa sida aan u qaadanayno kaalinta oo soo bandhigayno intii dhaqankeena dharkeena cunnada aad iyo aad aan ku faraxsanahay inshallah iyadoo markii afaraad ay tahay maarijaankan isla markaana lagu qabtay jaamacadda Qaahira oo ay ka soo qayb galeen wafdi aad u fara badan isla markaana ka socda 18 dawladood oo kulliyadda saraax ka dhigta jaamacadda Qaahira ay gabagabo weyd barnaamijkan qiimaha iyo qaayaha leh oo ay soo bandhigeen ardayda wax ka barta kulliyadda beeraha Mahad Carabow Cali telefishinka Universal jaamacadda Qaahira Giza